hogaamiyaasha isbahaysiga difaaca ee NATO ayaa ansixin doona xirmo cusub oo kale oo taageero military ah taasi oo loogu talagalay Ukraine sibaa la yiri ay u casriyeyso ciidamadeeda shirmadaxeedka dhamaadka bisha tan dhici doona sida uu ka dhawaajiyay madaxa guud ee isbahaysiga xogayaha guud ee gaashaanbuurta difaaca ee NATO isaga oo ka hadlaya shir jaraa'id oo ay yeesheen wasiirada difaaca kaasi oo loogu diyaar garoobay shirmadaxeedka guud ee hogaamiyaasha isbahaysiga difaaca kaasi oo lagu qaban doono bisha June 29 ilaa 30 bisha June magaalada Madrid ee dalka Spain wasiirada difaaca NATO ayaa kulan la qaatay dhigooda Ukraine, Georgia, Sweden, Finland iyo midowga Yurub si ay uga wada hadlaan horumaradii ugu dambeeyay ee dhanka ammaanka ayuu yiri xogayaha waxa uu sharaxay in xulafada NATO ay ka go'an tahay inay qalab military siiyaan Ukraine oo ay ku jiraan hubka culus iyo hababka gantaalada ridada dheer iyo sidoo kale in la kordhiyo taageerada wax ku oolka ah ee dalka iyo saaxiibada kale ee qatarta ku jira oo ay ku jiraan Bosnia, Herzegovina iyo Georgia xogayuhu waxa uu sheegay inuu filayo in hogaamiyaasha NATO ay ku heshiiyaan shirweynaha Madrid in ay qaadaan oo ay aqbalaan xirmo gargaar oo dhameystiran oo loogu talagalay Ukraine tani waa xirmo kale oo dhameystiran oo loogu talay Ukraine waxa ay ka caawinaysaa Ukraine si ay uga gudubto isticmaalka muddada dheer ee qalabkii Soofiyeedka una gudubto qalabka casriga ee NATO wuxuu xaqiijiyay in madaxweynaha Ukraine sidoo kale lagu casuumay shirka wuxuuna sheegay inuu door bidayo soo dhaweynta hogaamiyaha Ukraine shakhsi ahaan halkii uu ka heli lahaa isku xirka muuqaalka wasiirada difaaca ayaa sidoo kale ka wada hadli doona codsiga xubinnimada Sweden iyo Finland iyo sidoo kale walaaca saxda ee Turkiga ee la xiriirta dagaalka ay kula jiraan kooxda PKK iyo ururada kale ayuu sii raaciyay kulanka kani oo furmay maanta Arbaca ah waxa uu socon doonaa ilaa Khamiista galinkeeda dambe oo la soo gabagabayn doona shirka ayaa dulicdiisu waxa ay tahay wax ka qabashada baahida loo qabo in si weyn loo xoojiyo ka hortagiyada iyo difaaca si aan uga jawaabno xaqiiqda cusub ee amniga ayuu yiri madaxa ugu sareeya isbahaysiga sida laga soo xigtay xogayaha guud isbedelada waxa ka mid noqon doona joogitaanka badan karti badan iyo diyaar garow sare oo ciidamo badan oo net ah oo la geeyo dhulka hawada iyo badda ee dhinaca bari iyo sidoo kale internetka hogaamiyaasha NATO ayaa la filayaa inay iftiinka cagaaran ee ugu dambeeyay ee dib u habaynta Madrid hogaamiyaasha isbahaysiga difaaca ee NATO kulankooda gaarka uga qabsoomi doona magaalada Madrid ee dalka Spain ayaa iska weydiin doona xaaladaha guud ee gobolka qaabka loo wajahayo qorshayaasha iyo sida ay tahay looga gudbo xasaradaha guud ee hadda taagan